xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Kenya ayaa shalay magaalada Nairobi ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Yaasiin Xaaji Maxamed. labada dhinac ayaa ka wada hadlay danaha ay wadaagaan iyo sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ka dhaxeeya labada dal. labada dhinac ayaa ka wada hadlay danaha ay wadaagaan iyo sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ka dhaxeeya labada dal sida lagu qoray barta Twitter-ka ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya. hase ahaatee wasiiradda arrimaha dibadda dowladda Kenya Monica Juma ayaa waraysi ay siisay BBC-da ayaa lagu weydiiyay mowqifka Kenya ay ku aadan Somaliland. mowqifka Kenya ee Somaliland waxa uu la mid yahay kan Midowga Afrika, waan ixtiraameynaa xuduudaha Afrika sida ku qoran go'aankii Midowga Afrika ee sanadii 1964. dano ayaan ka leenahay dalal badan ka hor inta aysan dal noqon. Suudaanta Koonfureed wakiilo ayaa Kenya u joogay dal aynkaas ah ayaynu nahay. dalal badan ayaa wakiilo ku leenahay. taasi ma waxay ka dhigan tahay inaan la macaamilin? waan la macaamilaynaa ayay tiri wasiiradda arrimaha dibadda dowladda Kenya. dowladda Kenya ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxay xiriiro dhow la lahayd maamulka Somaliland oo horey ugu dhawaaqay inuu yahay dowlad ka madax banaan Soomaaliya, waxaana tallaabadaasi loo arkaa culays siyaasadeed oo ay Kenya ku saarayso Soomaaliya oo xiriirkii diblomaasiyadeed uu heerkii ugu xumaa gaaray. wakiilo ka socda maamulka Somaliland oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda maamulka Somaliland ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay tagay magaalada Nairobi, halkaas oo ay kulamo kula qaateen madaxda ugu sareysa wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Kenya.